Wasaradda Shaqo-galinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Saaxil oo kaashanaysa hay'adda SOS ayaa waxay soo qabanqaabiyeen xuska Maalinta Caruurta Dunida oo sanad waliba la xuso. Munaasabadda xuskani oo lagu qabtay magaalada Berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday dowladda hoose ee Berbera, wasaaradda cadaaladda, waxbarashada, hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradani iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda shaqo-galinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Saaxil, Ibrahim Salebaan Caateeye, waxaanu ka waramay muhiimadda ay maalintani u leedahay caruurta. runtii waa maalin weyn oo maalinta caruurta aduunka la yiraahdo. runtii waa maalin kunsuntan adduunka oo dhan laga xusayo oo ku beegnayd maalintii shalay ahayd 20 bisha. marka inaga maanta aynu qabanaynaa ma aha mid aynu inaga inoo gaar ah, mid Somaliland u gaarana ma aha, mid Afrika u gaarana ma aha, laakiin mid adduunkii oo dhan laga xusayo. waxaana loogu talagalay in lagu weyneeyo maalintan oo lagu baraarujiyo dadka waalidiinta ah iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha tacliinta iyo goobaha caafimaadka guud ahaan in lagu baraarujiyo si aynu ubadkeennii aynu kor ugu qaadno maaragtay dareenkoodii iyo waxbarashadoodii iyo adeeg kastoo ay u baahan yihiin mid lagu korinayo jirkooda iyo mid lagu korinayo maskaxdoodaba. marka dhammaanteen waxaynu u baahannahay oo aynu isku baraarujinaynaa inaynu ka shaqayno tayada caruurteenna, tayada ubadka, midaynu dhalay, midaynu haddii laba kuray gacanta ku hayno, midaynu mas'uul ka nahay, dhammaanteen inaynu saas isku baraarujinayno u baahannahay. Mas'uuliyiintii kala duwanaa iyaguna ka soo qayb galay munaasabadani lagu xusayay Maalinta Caruurta Dunida ayaa waxay ka warameen muhiimadda ay caruurtu u leeyihiin bulshada. waxa weeyaan maalin loogu talagalay in xuquuqda caruurta ay leedahay in lagaga doodo ama lagaga hadlo loogu talagalay. marka waxa xusid mudan caruurtu sida aynu wada ognahay waxa laga yaabaa qof kasta inuu soo waxaad ka mas'uultahay caruurta inta aad gacanta ku hayso ama inta aad dhashay. waxa laga yaabaa ilmahaaga hadda si kasta aad u dhargiso ama si kasta aad u siiso muxuu ahaayay aqoon fiican kulli saameyn waxa ku yeelanaysa in caruurta uu la nool yahay. marka halkan waxaan kaga faa'iideysanayaa inay waalidiintu ka warhayaan anigoo ku hadlaya magaca macallimiinta iyo wasaaradda waxbarashada. waxaan leeyahay bal in ardayda laga warhayo sidoo kale ardayda lagu dhaqan geliyo sharcan diinta islaamka. ummadana waxaan ku boorinayaa ama aan ku waaninayaa hadday tahay kuwa awlaadda dhalay dadka dhalay iyo hadday tahay kuwa mas'uulka ka iyo hadday tahay macallimiinta waxbarta intaba oo caruur gacanta ku haysa waxa leeyahay caruurta aynu ogaano aynu ilaalino. ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeyaan sidii caruurtu ay u heli lahaayeen hadday noqoto hooy waxbarasho ama xaq caafimaadba iyo sidii looga hortagi lahaa tacadiyo ka dhana oo ku dhaca caruurta. anigoo ku hadlaya afka dawladda hoose degmada Berbera diyaar waxaan u nahay isla markaana garab taaganahay cid kasta oo wax ka qabanaysa xuquuqda caruurta iyo daryeelkoodaba wax ka qabanaysa, hadday tahay hay'ado maxalli ah, hadday tahay hay'ado caalami ah, hadday tahay xildhibaano qaran iyo hadday tahay hooyooyin iyo hadday tahay institutionska kale ee qaranku leeyahayba. runtii sidaad la wada socotaan dawladda hoose degmada Berbera waxay gacanta ku haysaa waxbarashada aasaasiga ah oo runtii dugsiyada hoose dhexe iyo caafimaadka aasaasiga ah oo ah aad iyo aad bay farxad igu tahay inaan ka soo qayb galo kulankan quruxda badan ee loo qabtay caruurta. waxaan ku hambalyeeynaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inay qabato munaasabadaha caynkan oo kale ah tanina ay aad u qiimo badan tahay ka hadlayso maalintii caruurta adduunka. waana runtii astaan muujinaysa inaynu la jaan qaadayno inaynu la soconno caalamka aynu ku noolahay. runtii caruurtu waa beertuna hadba sidii aad u xanaanayso, aad u baaqbaaqdo, aad u waraabiso, aad u nafaqayso ayuunbaad midhaheeda goosanaysa. marka waxaa muhiima inaynu caruurteenna aanay noqon oo keliya in aynu iskuuluun ku daro inaynu cunto laakiin inaynu aad iyo aad ugu dhowaano. Saaqaasin telefishinka Saab magaalada